qaybtii saddexaad ee qisadii ma waxaan filayay baa waxa igu dhacay. wuu iskaga soo tagay wuxuuna soo cabaaray dhinacii shaqadiisa waxayna goobta shaqada ku kulmeen nin ay saaxiibo ahaayeen wuxuuna uga waramay saaxiibkiisa wixii subaxnimada qabsaday isaga oo qoslay ayuuna ku yiri dumarka haddadan sidaan u galin kama dambeynayaan balse saaxiibkii wuu la yaabay wuxuuna ku yiri oo ma sidaas oo la dhaqantaa haaskaaga miyaadan maqal hadalkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay dumarka waa quraarad oo kale ee haloo dhowro sida quraarada waxay ka mudan tahay in aad u naxariisato jacayl iyo daryeel siiso kama mudan in aad baxalnimo u la dhaqanto ninkii wuu isla yaabay aadna wuu u naxay wuxuuna soo qabsaday telefoonkiisa wuxuuna isla markiiba wacay haaskiisa si uu u raali geliyo una sheego inay iska dhaafto qadadii oo ay iska nasato balse kama aysan qaban telefoonka maxaa yeelay siday u eeysay ayuu naqaska ku dhagay maadaama ay hore u sii qabtay xanuunka naqaska waxaana markii dambe soo wacay isagoo walwalsan oo raba inuu guriga aado gabadha walaalkeeda wuxuuna ku yiri dhakhtarka ayaan joognaa noogu kaalay ka hagaas isagoo aad u naxasan misana degdegaya kana fikray haaskiisa ku dhacay oo murugo fara badan ka muuqato ayuu tagay dhakhtarkii loo tilmaamay markii uu yimid ayuu walaalkeeda weydiiyay waxa ku dhacay wuxuuna uga jawaabay ma garanayo waxa ku dhacay way soo wacday waxayna ii sheegtay inay xanuunsanayso anigana waan soo qaaday la soo qaybta afraad hadduu alle idmo